socdaalkayga beledweyne wuxuu salka ku hayay xiisadda muddo dheer qof walba ay la socoto oo ah in bulshada reer beledweyne reer hiiraan ama saa u dhigo iyo maamulka hirshabeelle laba mowqif oo adag ay kala taagnaayeen ayay salka ku haysay mowqif uu leeyahay cali guudlaawe muxuu ahaa ma imaan karo magaalada beledweyne mowqif kalena uu leeyahay cali guudlaawe hadduusan imaan doorasho kama dhacayso labadaas mowqif oo aada iskaga soo horjeedo sidii xal loogu heli lahaa ayaa ujeedadeedu ahayd inaan halkaa u tegay balse xoogoo hawshaas qas iyo qulub ayaa galay muxuu ahaa weli lagama quusan laakiin safarkeygiinu soo gaabto taasaa sabab u ahayd waata aad baad umahadsan tahay khilaafka iyo diidmada dadka reer hiiraan ay diidan yihiin dowlad goboleedka hirshabeelle hanaanka loo maray dhismihiisa muddo ayay soo jiitamaysa oo in ka badan 9 bilood hadda maxaa keenay in arrintan la boonbooniyo oo ay soo cusboonaato maxaa soo kordhay wasiir arrintan saad la socotid way taagneed waxaa soo kordhay keliya waxaa weeye in dhinacan hirshabeelle maamulka hirshabeelle ay isku day samaynayaan inay siyaasadda doorashada iyo muxuu ahaa cabashadii iyo is-hortaaggii taagnaa inay isdhexgeliyaan oo ay isku dayaan bal hadday oga faa'iidaysan karaan in cali guudlaawe uu tago iyadoo markaas doorashada loo isticmaalayo taas ayaa moodaa in xiisaddan cusub ay keentay laakiin horey u taagneed xiisaddu laakiin waxaad moodday inay meel ku saldhigtay cali guudlaawe ha noo imaanin iyo asigoo aan ilaa 10 bilood oo madaxweyne inuu yahay uu sheeganayo uusan tegin waa gartay dhanka kale ee dhowaan beledweyne waxaa tagay madaxweyne ku-xigeenkii oo muddo halkaasi jooga ku laabtay iyadoona ay wafdigiisa ay qayb ka ahayeen xildhibaano deegaan doorashadiisu halkaasi ay tahay iyo siyaasiyiin kale maxay tahay ujeedka markaasi socdaalkaasi ayaga u tageen oo la sheegay lala xiriirinayo inay qancinayaan ama tabashada dadka reer hiiraan maxaase xilligan kusoo beegay muddoy soo jirtay arrintaasi waa mahadsan tahay waa su-aal wanaagsan wafdiga dabageed beledweyne dhowaan tegey anoo jooga ayay yimaadeen wafdigu wuxuu ka koobnaa dad siyaasiyiina dad xildhibaano ah oo hadda xildhibaanadii baarlamaanka joogay ah kuwa hore xildhibaano u ahaa muxuu ahaa iyo waxgarad kale oo ayay iskugu jireen uu hogaaminayey muxuu ahaa dabageed qasdigooduna wuxuu ahaa qasdiga hadda aan kuu sheegay oo anigaba aan u tegey bal in arrimahaas haddii laysku soo dhoweyn karo aysan doorashadu imaanin iyadoo laba mowqif oo adag la kala joogo qasdigu kaasuu ahaa oo rasmiga ay sheegeen laakiin waxaa muuqatay in anigu balaan b ma qabin oo inaan muxuu ahaa tabliiqiyo inaan muxuu ahaa wacyigelinta kor u soo qaado inaan abiil u sameeyo mataqaanaa in dadku ay fahmaan dantooda ayaa anugu ajandahaygu ku koobnaa laakiin waxaa moodaa tiimkan in ajando kale hadduu kan fuli waayo muxuu ahaa qorshaha kale oo noo xigaayo inay u qorshaysneed oo ah kor iyo hoos inaan xoog ku keenno cali guudlaawe marka taas markay gaartay ayaa muxuu ahaa sheekadu isbedel xoogle iyo xiisad xoogle gashay waxaa sheegtay in madaxweyne ku-xigeenka halkaasi tagay iyo sidoo kale siyaasiyiinta xildhibaanadu qaarkoodba ay doonayeen in la geeyo madaxweynaha halkaasi oo muddo uusan tegin ama dadku deegaanka ay kasoo horjeedaan haddii go-aankooda kale ay qaateen ah in halkaasi ay geeyaan oo doorashadu ay ku xiran tahay oo madaxweynaha uu tago maxaa ka dhici kara halkaasi wixiise ka dhacanaya mas-uuliyaddeeda qaadanaya horta waxaan la hubin oo caddayn doorashada inay ku xiran tahay in cali guudlaawe tago anigu waxaan aaminsanahay shardi ma aha muxuu ahaa asiga qudhiisa muxuu ahaa waxaa u wanaagsanaa laheyd inuusan tegin laakiin aragtideyda iskuma xirna doorashadan waa doorasho federaal ah baarlamaanka la doorana waa kii federaalka ahaa
hirshabeelle kaalinta ay ku leeyihiin waa inay korjoogteeyaan oo ay muxuu ahaa amniga iyo nabadgelyada iyo waxa ay sugaan sida rasmiga waa sidaas muxuu ahaa guddi heer muxuu ahaa heer maamul goboleed iyo guddi heer federaal ayaa iskaga koreyn doono maamulka doorashada marka haddii muxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii joogo haddii uu joogo muxuu ahaa gobernatorihii oo cali guudlaawo magacaabay haddii uu joogo guddoomiyihii degmada oo cali guudlaawo magacaabay haddii booliiskii iyo nabad sugudii iyo wax walbaba ay hoos tagaan cali guudlaawo iyo maamulkiisa sabab ay doorashadaas u dhici weyso iima muuqato haddii aan xiisad siyaasadeed la gelinaynin waana midda qof walba tuhmayso waa garta beledweyne waxay ka mid tahay goobaha deegaan doorashada ee lagu heshiiyey in gobol kasta 2 meel ay ka dhacdo beledweyne ayaa qayb ka mid ah goobaha markaasi doorashada ay ka dhacayso haddii xiisadan iyo waxyaabaha hadda laga soo sheegayo haddii soo kordhaan ay sii kordhaan ma laga yaabaa in go-aan degdeg laga qaato la yiraahdo halkaas ammaan ma bahano doorasho kama dhacayso in la yiraahdo way adag tahay maxaa yeelay waa ammaan fiiri inay ammaan beledweyne tahay way caddahay in shacabka reer beledweyne ay u diyaar garoobeen doorashada way caddahay maxaa yeelay waxaa tilmaam fiican ku ah inta hotel cusub la dhisay oo loogu diyaar garoobay in lasoo dhaweeyo doorashada inta gaadiid cusub la keenay si looga ijaaro muddada kooban muxuu ahaa musharaxiinta imaanayo inta makhaayado cusub soo galay muxuu ahaa saaxadda inta guryo cusub la dhisay iyo guryo hore la dayactiray inta maqaayadihii hore jikooyinkooda iyo waxooda la dayactiray bakhaarada stooga maanta yaallo oo ay marnaba rabin inuu kala go' yar dhaco xoolaaleyda ganacsatada xoolaha ka shaqayso moorooyin badan oo xoolaha hadda lagu xanaaneeyo si maalmahaas hilib aan loo waayin yacni dadku waa diyaar garoobeen amniguna wuxuu ku jiraa gacanta dowladda oo dowladda ama heer federaal ha ahaato ama heer muxuu ahaa maamul goboleed ha ahaato amnigana waxay kala mid tahay weliba meelaha ugu fiican waayo waddanka marka sababay oga dhici weyse ma jirto haddii qallaasa marka timaado oo colaad la abaabulo oo dad ku dhinto oo la gaarsiiyo magaalada meelaan wax lagu qaban karin hadda mas-uuliyaddaas waxaa iska leh dadka rabo in shaksi si uu u yimaado waxaasoo dhan u baabi'inayo aad baad umahadsan tahay in ka badan 9 bilood ayay halkaasi hirshabeelle diidmadeeda ay soo jiitamaysaa labada madaxweyne waxaa kala muuqato ku-xigeenka iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle inay kala joogaan goboladii horey iskugu darsamay haddii aan hiiraan iyo sidoo kale shabeellada dhexe marka dowladda federaalka ee soomaaliya ee dowladdii dhexe awood uma lahan miya inay arrimahaasi soo farageliso maxay kula tahay kor ayay kaga eeganaysaa ilaa hadda labada dhinacba aysan isku imaan la'yihiin waa mahadsantahay waa su-aal aad wanaagsan haddii aad fiirsid taariikhda lagu dhisay maamulkan hirshabeelle sidiisaba maamulada kale markii la dhisayay dad baa wax isku darsaday dad baa fariistay dowladdii federaalka ee markaa jirtay waxay ka ahayd muxuu ahaa gogashay dhigaysay gogashay agaasimaysay laakiin dadka wax isku darsanayay heshiis bulsho oo 2 gobol ah ayaa si volunteer iskugu biiray halkan waa xasuustaa 2016 markii la dhisayay waxaa socotay doorashadii sida hadda u socoto doorashaa loo sameeyey waktigeeda ma aysan qaadan dadku diyaar uma ahayn uma bisleen waxaa lagu sameeyey iyadoo madaxa lagu haayo sidii kuraas looga soo saaran lahaa inta ka dambeysay dan lagama lahayn maxaa yeelay dadkii kuraasta ka soo saaray waa iyagii waayey muxuu ahaa codka marka gruubkii kaleo yimid priority kale iyo ahmiyad kale iyo howlo kale ayay culayska saareen markii la gaaray doorashada sidii kuwii hore ay sameeyeen ayay haddana maxaa yeele labadii doorashaa isku soo haday tii hirshabeelle oo isbeddel ka jiray iyo tii kale oo daba tiile marka waad arkaysay wixii dhacay wixii lagu heshiiyey oo yaraa oo waktigii degdegta loo dhisaya lagu heshiiyey ninaan xiirinayn oo rabo in wax loo soo muxuu loo soo farsameeyo ayaa haddana
ku tala xumaaday oo dhisay hirshabeellada hadda taagan mas-uuliyiintooda marka runtii fursad dadku ay wax ku qabsadaan ma laha 9 bil hadduu dabageed joogay wuxuu xalinayay wax uusan awoodiis ahayn inuu xaliyo maxaa yeelay jawaabaha laga rabo oo reer hiiraan ka rabaan ma keeni karo jawaabo waxa weeye maxaa ballantii aan lahayn looga baxay caasimad iyo madaxweyne aan kala qaadanay maxaa looga baxay kama jawaabi karo muxuu ahaa hadda maxaa la damacsan yahay kama jawaabi karo marka nin gurigiisii yimid iyo degaankiisii oo iska joogo ahaa laakiin dowladdii federaalka ee soo faragelin lahayd na waata waxaan qastay oo uma hayso dhadhan ay kusoo dhex istaagto rooble waxaa moodaa inuu yahay prime minister doorasho prime minister siyaasado kale ka shaqeeyo uma eka walow uu yeelan karo muxuu ahaa maqaam iyo mataqaanaa door oo wax uga qaban karo maxaa yeele furayaal badan oo haystaa mid fura lama weynaayo haddii uu qalbi ahaan ka soo go'do waana midda aan ku baraarujiyey aan ku dhiirigelinayo inuu sameeyo waatahay wasiir aad baad u mahadsan tahay dad badan ayaa waxay isweydiinayaan hiiraan waxaa laga diidan yahay hirshabeelle haddana markaad eegto waxaa ku sugan oo xafiis ay u tahay madaxweyne ku-xigeenkii qaar ka mid ah golaha wasiirada ayaa halkaasi tagaya xildhibaano ka tirsan ayaa magaalada beledweyne jooga waxaa loo fasiran karaa diidmada madaxweynaha cusub ee hirshabeelle ee haatan loo doortay iyadoo horey loo ogyahay in madaxweynihii ka horreeyey uu ka soo jeeday hiiraan markaasi labada dhinacba uu tegi jiray marka in madaxweynahan beledweyne ma imaan karti lalaho arrimo kalaa loo fasiran karaa ayay dadka qaar leeyihiin dadka noocaa u fasirto ilaa xad waa saxan yihiin waddankeenu qabyaaladu kama dhiman qabyaalada sal u ah qofkii taa iska indho tiro waxaa weeye mataqaanaa qof aan aragtidiisu aada u fogeyn madaxweyneyaashii hore hirshabeelle markay jireen cabashadu intaan waa ka yareed cabashadu wuxuu ku koobneed barlamaanka oon si cadaalada loo samaynin muxuu ahaa waxyaabo noocaas laakiin markii madaxweynihii iyo caasimadii iyo muxuu ahaa awood qaybsigii xooggiisii oo dhan uu dhinac maray dadku waa kacaya haddii marka sida ugu maqaalaha oo aan fahmay waxaa weeye go-aanada ay qaateen waxaa ka mid a si hiiraan dhexdeeda uusan qas uga imaan wiilka reer hiiraan ee shabeelle sheeganaya hirshabeelle inuu ka tirsan yahay gurigiis inuu yimaado cidna yaan loo diidin go-aan noocaas ay qaateen laakiin yaan lagala xaajoonin wax hirshabeelle ku saabsan marka waa position siyaasadeed oo ay qaateen sida ay ii fasireen muxuu ahaa waana ila macquul haddii duruuf noocan oo kale ay jirto waa gartay sidee kula tahay arrinkan waa loo xalin karaa maxayse kula tahay dadka reer hiiraan ee ayagu markaasi diidmada kala hor yimid hanaanka loo maray guud ahaanba hirshabeelle maxaase lagu qancin karaa waa mahadsantahay waa su-aal weyn aada u weyn oo runtii su-aasha ugu muhiimsan oo nuxurka hawshaan ugu soo dhammaanayso haddaad fiirisid xalku wuxuu ka imaanayaa labo mid labaduna salka waxay ku hayaan tanaasul mid waa in reer hiiraan ay dhahaan ahmiyad weyna noo leedahay doorashadu wax badan ayaa nooga dhex jiro aadaan oo xunnahay in ay isku xireen siyaasaddii iyo tabashadii iyo falcelinteenii iyo doorashadii isku xireen aadaan oo xunnahay laakiin waa tanaasulaynaa muddada doorashada jirto cali guulaaw iska dhaafay asagoo yahuud wato ha yimaado waa go-aan ay qaadan karaan oo tanaasul ah oo keeni karo in xiisaddan ay dhammaato dhinaca kale waxaa dhici karto in cali guulaawe uu yiraahdo haddaa aniga i kahsateen doorashadu ahmiyada weyna idiin leedahay waana idiin laxa jecloonaya anigana waxay ii leedahay ahmiyad weyn qarankana ahmiyada u leedahay haddii waxa laysku haysto dhibsashadeeda ay tahay waan ka baaqsanayaa inaan imaado labadaas asna waa tanaasulaya labaduba waa xal haddaa labadaas xalkaa fiirisid marka midda fudud yacni middan reer hiiraan waxay u baahan tahay in muxuu ahaa ay ka fariistaan ay ka shuureeyaan dhaqanka
muxuu ahaa nimanka muxuu ahaa ciidamada gadooday muxuu ahaa niman samata bixin la yiraahdo oo ah wingiga yani garabka siyaasadeed muxuu ahaa ciidamada gadooday dhalinyaradii iyo bulshadii iyo civil society-gii abaabulaya mudaharaadyada iyo kacdoonka muxuu ahaa ganacsatadii u arkayay in muxuu ahaa dhaqaalo badan uga maqan tahay awood qaybsi la-aanta waxaasoo dhan waa inay shuureeyaan si go-aan ay u gaaraan cali guudlaawe waa u tanaasulna waxaa sahlan in cali guudlaawe waa shaksi waa qof intay shuureyn lahdo wax laga sugi lahaa inuu kan shuureeyo ee uu tuso reer hiiraan inuu u laxa jecloonaayo aysan shaqadu ahayn madaxweynean qaatay caasimadan qaatay haddana waxaan ku darsanayaa muxuu ahaa doorashadiian qaadanaya inaysan noqonin oo tanaasul sameeyo tuso laxa jeclo inay ku hayso meeshaasi ka sahlanta wasiir aad baad umahadsan tahay taladaada ugu dambeysa gabagabada barnaamijka isla soo gaarnay ee guud ahaanba ummadda soomaaliyeed ee ku daawanaysa xilligan kala guurka dalka xilligan uu wajahayo arrimaha doorashooyinka ee aad jeedin lahayd maxay tahay adaa umahadsan tahay waa fursad wanaagsan anigu waxaan kusoo koobi lahaa 3 talo talada koowaad waxa waaye midda hadda aan ka dhawaajiyey in cali guudlaawe uu tuso reer hiiraan inuu laxa jecloonayo oo yiraahdo haddii waxa doorashada qaska gelinaya aan aniga ahay si aad idinku aaminsan tihiin waan idii tanaasulay idii imaayo doorashada si wanaagsan ha loo qabto diyaargarowgiina ha lasii qurxiyo waana kula talinaya cali guudlaawe hadduu barnaamijkan dhegaysanayo ama haddii dadka la talaya ay dhegaysanayo qodobka labaad oo aan raba inaan ka hadlo waxa weeye prime ministerka halkan waxaa uga bannaan door wanaagsan oo tii Soomaaliyeed ah oo shaqadiisa ah ayaa uga bannaan waxaan aaminsanahay hadduu beledweyne tago ama uu cali guudlaawe la hadlo labadaas hadduu bilaabo inuu la shaqeeyo waxaan aaminsanahay inuu xal keeni karo waana ku dhiirigelinayaa aad iyo aad ayaan mataqaan ugu boorinayaa inuu shaqadaas waqti geliyo because waqti khasaare ma noqon doono qodobka saddexaad waxa waaye sida hadda ay wadaan mas-uuliyiinta hirshabeelle ee jooga beledweyne ee dhahaya qardajeex iyo dagaal ayaan ku keenaynaa halkan cali guudlaawe inay ka waantoobaan hadday saba dhacdo inaysan ka waantoobin waxaan jecelahay in ciidamada Soomaaliyeed ee jooga beledweyne aan loo adeegsan hadaf siyaasadaysan inaan loo adeegsan shakhsiyaad iyagu ka raadinaya naf in cali guudlaawe oo nafta ku celiyo in aysan horkicin aysan dadkii loogu talagalay inay difaacaan ay isku dilin intaas saddexdaas arrin ku tali lahaa waa tahay aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore waxbarashada ahna iminka xildhibaan ka tirsan golaha shacabka mudane cabdulaahi godax barre oo markaasi nagala qaybgalaya barnaamijka xulka wararka ee telefishinka Soomaali Cable waxaana inta badan aynu ku eegaynay xiisadda markaasi ka dhaxdhulisan gobolka Hiiraan iyo sidoo kale diidmada markaasi dadka reer Hiiraan ay ka qabaan dhismaha labaad hanaanka loo maray dowlad goboleedka Hirshabeelle oo markaasi muran xoogan iminka uu ka taagan yahay xilli dalka markaasi uu galay doorasho beledweynena ay ka mid tahay goobaha markaasi la cilaamiyay in doorashadu ay ka dhacdo